shacab careysan oo weerar ku qaaday kooxda al-shabaab kana dhaawacay amiir sare. dhacdooyinkii ugu murugada badnaa ee kasoo kordhay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho. fanaanka BK oo qaraxyada muqdisho ku eedeeyay maamulkiisa Somaliland. wasiir islow oo aqbalay in uu gebi ahaanba iska casilo xilka uu hayo kadib qaraxii ka dhacay isgoyska ex-control afgooye. iyo sheekh axmed oo sheegay in madaxda ka shaqeysa muqdisho ay soo xulato kooxda al-shabaab. intaasi waa qodobada ku doorkoran barnaamijkana iminkana kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan. aynu ka horeynay shacab careysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen kooxda al-shabaab iyagoo ka dhaawacay amiir sare. ururka al-shabaab ayaa waxa ay weerar gaadma ah kala kulmeen maleeshiya dadka deegaanka ah oo kamid ah kuna nool qeybo kamid ah gobolka hiiraan. dagaal xoog leh ayaa ka dhacay halkaasi waxaana la sheegayaa in uu ka dhashay khasaaro kala duwan. waxaana dagaalkaasi la sheegayaa in uu ka dambeeyay kadib markii shacabka ay gebi ahaanba ka beediideen waxa loogu yeero zakawaadka. dagaalka ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan. 2 qof oo uu ka mid yahay taliyihii ama amiirkii ciidanka al-shabaab ee ceel cali ayaa la sheegay inuu dhaawac kasoo gaaray weerarkaas. ma hayno war rasmi ah oo ilaa iyo haatan kasoo baxay dhinaca ururka al-shabaab oo ku aadan weerarka lagu soo qaaday ciidamadooda ku sugan deegaanka ceel saliini deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan, kaasi oo la sheegay in looga dhaawacay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab. dhinaca kale dhacdooyinkii aadka u murugada lahaa ee kasoo kordhay qaraxii shalay ka dhacay muqdisho ayaa lasoo bandhigay. waxaa weli tiiraanyo ay ka jirtaa meelo kamid ah magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya, halkaasi oo uu shalay ka dhacay qarax aada u xoogan. qaraxa oo lagu hoobtay ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska ex-control afgooye, waxaana uu ahaa midkii 3aad ee ugu dhimashada badnaa taariikhda guud ahaan Soomaaliya. dadka ayaa la sheegayaa in ay dib u xusuusteen qaraxii musiibada ahaa ee ka dhacay isgoyska Zoobe, kaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 1,000 qof oo shacab u badnaa. qaraxii shalay ayaa waxaa la sheegayaa in isbitaalada muqdisho uu buux dhaafiyay hooyooyin kala duwan iyo waalidiin kuwaasi oo doonaya ama baadigoobaya raq iyo ruux caruurtooda ka agdhawaa halka uu qaraxu ka dhacay. waxaa la sheegayaa in maamooyinkaas ay durba bilaabeen markii halkaasi tegeen ilmo kadib markii ay arkeen caruurtooda qaarkood. wararka ayaa sheegaya in qaar kamid ah hooyooyinkaasi ay weli la-yihiin caruurtooda islamarkaana ay dalbanayaan in laga saacido sidii ay u heli lahaayeen. geesta kale fanaanka maxamed saciid BK ayaa qaraxyada ka dhacay koonfurta Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay maamulkiisa Somaliland. maxamed saciid BK oo ah fanaan ficilkiisa iyo weliba hadalkiisa uu mar walba abuuro nacayb ayaa markaan ka dhawaajiya hadal aada uga careysiyay bulshada Soomaaliyeed. hadalkan oo uu ka jeediyey magaalada London ee xarunta cariga wadanka Ingiriiska ayaa waxa uu ahaa in haddii koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ay dooneyso in ay nabad hesho ay aqoonsi siiso maamulka gooninsutaaga ah ee Somaliland. BK ayaa hadalkaasi waxaa aada ugu dhaleeceeyay qeybo kala duwan oo ka tirsan bulshada, waxaana loogu baaqay in uu raali gelin buuxda ka bixiyo arrintaas. dadka arrintan ka ficiliya oo isugu jira fanaaniin iyo weliba wariyaal ayaa waxa ay sheegeen in uu cadeen u yahay in BK uu hadalkaasi u muuqanayo mid uu ku jeesjeesayo shacabka ku dhintay qaraxaas. dowladda Soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay in weerarkii ka dhacay ex-control afgooye lagu dilay in ka badan 80 ruux, kuwaasi oo badankoodu ahaa arday. hadalka BK ayaa wuxuuna kusoo aaday qaraxaasi oo ilaa iyo haatan aysan jirin cid sheegatay. madaxweyne Farmaajo ayaa ku eedeeyay ururka al-shabaab.
dhinaca kale wasiir islow ayaa waxa uu aqbalay in uu baneeyo xilka uu hayo kadib markii uu shalay ka dhacay muqdisho qaraxa xooggan. warar soo baxaya ayaa sheegaya in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale uu gabi ahaanba ka tanaasulay xilka uu hayo. wararka ayaa sheegaya in tani ay ka dambeysay markii uu ogolaaday in uu ku fashilmay sugitaanka amniga iyo waliba dadka ku nool caasimadda Muqdisho. wasiir Islow ayaa muddada uu xilku hayay waxaa la sheegaya in dad badan ay ku dhinteen Muqdisho, waxaana aada loo xasuustaa xasuuqii ka dhacay isgoyska Zoobe halkaas 14 Oktoobar 2012 lagu dilay in ka badan 1000 qof kuwaasi oo badankoodu ah shacab. xog hoose oo ay heshay shabakada badweyn online ayaa sheegaysa in wasiirka uu aqbalay soo jeedin uga timid madaxweynaha Soomaaliya oo ku aadan inuu shaqada ka tago, isla markaana uu gabi ahaanba xilkaasi baneeyo loona magacaabo xilkaasi wasiir ka soo dhalaali kara xilka arrimaha amniga ee magaalada caasimadda Muqdisho. Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in masuuliyiinta ka shaqeysa gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ay badankooda soo xulatay kooxda Al-Shabaab. madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qaraxii ka dhacay Muqdisho uu muujinayo in khatarta Al-Shabaab ay weli taagan tahay. Shariif oo hadalkan sheegay xilli isaga oo uu heliyo Xasan Sheekh Maxamuud ay booqdeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii ee ex-control afgooya ayaa waxa uu tilmaamay in dowladdu ay u sugayso ammaanka magaalada Muqdisho qaab ay ku fashilantay 3 sano ee la soo dhaafay. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hibilo qaran ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Farmaajo ay muhiim tahay in ay isbedel ballaaran ku sameyso ammaanka Muqdisho iyo waliba qaabka ay u sugayso. Shariif ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in iyadoo dowladihii waddanka soo maray ka hor xukuumadda Farmaajo ay hooseyso taageerada ku aadan dagaalka Al-Shabaab iyo waliba waxa loogu yeero argagixisada aysan ammaanka Muqdisho ahayn sida ay haatan tahay sida uu hadalka u dhigay. Sheekh Axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxii ka dhacay ex-control afgooye lagu sameeyay sida uu hadalka u dhigay canshuurta ee Al-Shabaab ka qaado dadweynaha ku nool magaalada caasimadda Muqdisho. ugu dambeyntii Sheekh Shariif ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in masuuliyiinta iyo waliba madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka shaqeysa gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay badankooda soo xulatay sida uu hadalka u dhigay kooxda Al-Shabaab oo gacan saar weyn la leh shabakada Al-Qaacida ee fadhigeedu yahay dalka Ciraaq iyo waliba Syria walow sanadii u dambeeyay aad looga taageeray. ugu dambeyntiina taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa waxaa la sheegayaa in qaraxii ka dhacay ex-control afgooye ee magaalada caasimadda ee Muqdisho uu ku eedeeyay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu shir degdeg ah la qaatay masuuliyiinta ammaanka ee dowladda Soomaaliya kadib qaraxii shalay. ilo xog ogaal ah ayaa shabakada badweyn online u shaaciyay in Fahad Yasiin uu si adag ula hadlay saraakiisha ammaanka isagoona amar ku bixiyay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo qaraxan isla markaana jawaab la horkeeno. ilo xog ogaal ah ayaa intaas raacinaya in wasiirka amniga uu ka soo daahay kulankaas isla markaana uu qaybta dambe la soo qabsaday. saraakiil goobjoog ah kulanka balse codsaday in aan magacooda la adeegsan ayaa waxa ay u sheegeen badweyn online in wasiirka amniga lagu canaantay in dowladdu ay heli weyso xogta ku saabsan qaraxaas. Fahad Yasiin ayaa la sheegayaa in uu isla u sheegay in masuuliyada qaraxan uu isagu qaadanayo isla markaana ay waajib tahay in uu keeno cadeymo buuxo oo ku aadan cidda ka dambeysay iyo waliba qaabka loo fuliyay. wasiir Islow ayaa la sheegayaa in kadib markii hadaladaasi lagu dhahay wada culuday isla markaana uu gabi ahaanba shirka ka soo baxay. xogta ayaa sheegaysa in wasiir Islow uu arintaasi kadib kulan la qaatay
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaare Kheyre. Farmaajo ayaa waxaa la sheegayaa in uu sheegay in arrintaasi faragelin karin isla markaana uu kaliya Fahad Yasiin go'aan ka gaari karo. Si kastaba haatee arrintan ayaa waxay ku soo-aadaysaa iyadoo ay soo baxayaan warar lagu kalsoonaan karo oo daboolka ka qaadaya in Fahad Yasiin iyo waliba Wasiir Islow ay isku dhaceen isla markaana Islow loo soo jeediyay inuu xilka iska casilo. Madaxweyne Farmaajo ayaa la tilmaamay inuu qayb ka yahay masuuliyiinta kula talisay Islow in uu gabi ahaanba xilka iska casilo isla markaana loo magacaabi doono xil kale. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii u dambeeyay mid hagaagsan, waxaana qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho uu noqday midkii saddexaad ee ugu dhimashada badnaa taariikhda casriga ee Soomaaliya, waxaana uu ruuxay gabi ahaanba qulubta shacabka Soomaaliyeed. Intaasi ayaan kusoo afmeerayaa wararkii Badweyn Online. Intaan dib u kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.